5 sano iyo dheeraad oo uu ifka uga dambeeyay wasiir Cabbaas Siraaji maanta ayaa tiirka la soo taagay Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid oo rasaas uu gamay ay sabab u noqotay geerida wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumaddii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. toogashada ayaa ka dhacday dugsiga tababarka ee General Gordon ee magaalada Muqdisho. waxay ahayd bishii May ee 2017 markii maxkamadii ay ku xukuntay Axmed Cabdullaahi Cabdi dil toogasho ah. hase yeeshee xukunkaasi markii uu dhacay ma aysan jirin fulin, waayo Axmed ilaa iyo xilligaasi ilaa iyo maanta oo la toogtay waxa uu baaqi ku sii ahaa xabsiga isagoo aan lagu fulin wixii maxkamaddu ku xukuntay. tani waxa ay shaki weyn ku abuurtay ehelka marxuum Siraaji, kuwaasi oo in badan raadinayay cadaaladda. waxaa la arkayay iyaga oo baraha bulshada qoraalo kala duwan soo dhigaya qoyska marxuumka, kuna dalbanaya in cadaaladda la marsiiyo ninkii wiilkooda dilay. waxay aad ugu dhaliili jireen xukuumaddii hore ee Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay ka gaabsanayso fulinta waxa ay maxkamadda xukuntay iyo in cadaalad uu helo wasiir Cabbaas Siraaji. hase yeeshee ugu dambeyn maanta maxkamaddu waxa ay fulisay xukunkii ay riday 2017 waxaana Axmed uu maanta ku baxay gacanta ciidanka dowladda Soomaaliya oo toogtay iyaga oo fulinaya xukun maxkamadeed. walaalka ka weyn marxuum Cabbaas Siraaji oo hadlay si gaar ah fariin ugu soo qoray bartiisa Twitterka ayaa sheegay in ugu dambeyntii cadaaladii ay hirgashay, isaga oo si gaar ah ugu mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu dhigaalkiisaba ku sheegay in kii isaga ka horeeyay ee xukunka joogay oo uu kala jeedo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii uu fulin waayay inuu isaga fuliyay. waxay u muuqataa hadalka marxuum Siraaji walaalkii ka soo yeeray inay tahay mid cadaaladii inay heleen oo ay ka qanceen muujinaya. dad badan ayaa aad u soo dhaweeyay xukunka maanta la fuliyay, iyaga oo u arka in ugu dambeyn cadaaladii hadday rabtaba ha soo daahdee lagu guuleystay, xaqii Cabbaas Siraaji laga galayna uu maanta gudmay. xumkan maanta la toogtay ee lagu magacaabo Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid ayaa waxa uu ka mid ahaa ilaalada hanti dhowrkii guud ee xilka laga qaaday Dr. Nuur Faarax Jimcaale, waxaana rasaas 3 bishii May ay fureen ay sabab u noqotay in uu ku geeriyoodo Cabbaas Siraaji, kaasi oo ahaa 31 sano jir.